الرحمن الرحيم. waxay noo socday weegii saddexaad ama third week of development ayaa noo socday. Marka maanta halkiisii ayaa kasii ambaqaadeynaa haddii uu eeba noo ogolaado. Marka weegan waxa ugu talagalnay in aan kaga hadalno labadan cibaan gasulationka iyo sidoo kale waxaan ugu talagalnay iyo formation of notochord. Okay, gasulationka darsigeena hore ayaan kaga soo hadalnay. Formation of notochord maanta ayaan ka hadli doonaa haddii uu eeba noo ogolaado. Marka intaan u gudagelin formation of notochord ama sida uu sameysmo notochord, ugu horeyntii waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo darsigeena hore halka uu noo marayay. Darsigeena hore waxaan kaga soo hadalnay weegan inta ku jirno waxaan kaga soo hadalnay gasulationka. Gasulation waxaan kusoo sheegnay processka ama nidaamka ama qaabka lagu abuurayo saddexda germ layer ama 3 germ layer oo kala ah ectoderm, mesoderm iyo endoderm. sidoo kale waxaan soo sheegnay saddexdaas layer qaabka u sameysmayaan iyo sida u kala hormarayaan iyo waliba layer walba xubnaha oo noo sameyn doono mustaqbalka. Inta waxaan kaga soo hadalnay darsigeena hore ayaan kaga soo hadalnay. Marka maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo formation of notochord. Marka intaanan u gudagelin formation of notochord, ugu horeyntii waa inaan fahanaa qaabka ay u jiran yihiin dhammaan sawirada aan meeshan idinkugu sawiray sida u jiran yihiin. markaas kadib ayaan u gudagalaynaa darsigeena maanta. haddaan ku bilaabay sawirka ugu horeeyo, sawirkan waxaan u jarnay as sagittal section ayaan u jarnay. Waxaan u jarnay as sagittal section. kan ugu horeeyo waxaan ku magacaabeynaa sagittal section. sagittal section ayaan ku magacaabeynaa. sagittal waxaan ka wadaa waxaan ka jarnay midlandki ayaan ka jarnay. haddaa aan tusaale yar idin tuso, dabcan way adkaanaysaa sawir aan sabuurada idinkugu sawiray. tusaale yar haddaan idinkaga tuso, sawirka marka uu saan yahay sida kubadan oo kala waaye. marka kubadan waxaan u jaraynaa midlandki ayaan ka jaraynaa. waxaan ka jaraynaa sagittal ayaan u jaraynaa midlandki ayaan ka jarnay. midlandkii markaan ka jarno waxaa noo soo baxaya marka sawirkan ayaa noo soo baxaya. marka meeshan waxaan ku magacaabay aan kusoo magacaabnay ama aan ku magacaabeynaa cavity. laba cavity waa meeshan waa secondary oxide, meeshan waa amniotic cavity ayaan dhehaynaa. okay, haddaan u gudubno sawirka labaad. sawirka labaad asigana waxaan u jarnay waa sawirkan as horizontal ayaan u jarnay. horizontal section ayaan u jarnay. horizontal section markaan u jarnay ayaan waxaan u fiirinaynaa marka dorsal view ayaan u fiirinaynaa. markaan jarnay sawirka asigana tusaale yar haddaa idinkaga tuso, sawirka markaan jarnay ayaan waxaan u fiirinay marka dorsal view ayaan u fiirinay. sawirka waa kan marka hore wuxuu ahay sida kubadan oo kale ayuu ahay. marka waxaan u jarnay as horizontalka markaan u jarnay waxaan u fiirinaynaa dorsal view. marka maxaa noo soo baxayo jidadu waa isku mid waaye. markaasaan u jarnay. marka meeshan waxaan ku magacaabeynaa qaybtan waa cephaligii waaye, qaybtani waxa waaye caudal endigii waaye. okay, haddaan u gudubno sawirka ugu dambeeyo oo maanta aan qaadan doono waa sawirkan wuxuu u jiran yahay transfer section ayuu u jiran yahay. sawirkan wuxuu u jiran yahay transfer section ayuu u jiran yahay. wax kale ma ahan layerska markay saan isku saarnaayeen. markaan layerska markay saan isku saaran yihiin ayaan dhexda kala jaraynaa. dhexda markaan jarno dhinacaan u fiirinaynaa. markaan jarna aan saan u fiirinaynaa. ama sawirkan oo kale saan markuu yahay waxaan ka jaraynaa dhexda ayaan ka jarnay. markaan jarnay ayaan saan u fiirinaynaa. okay, marka meeshan waxaan ku haysanaa meeshan waa epiblast waa. layerkan waa epiblast waa. sidoo kale meeshan qaybtan hoosena waxaan ku haysanaa hypoblast.
hypoplasty ayaan ku haysanaa qaybtan hoose. Markaan kasoo hadlaynay wiiga labaad waxaan soo sheegnay bilaminar germ disk ay noo samaysmayeen. Wiiga labaad labadan ayaa noo samaysmayay, epiplasty iyo hypoplasty. marka wiigan aan soo galnay ama third week of development ama wiiga saddexaad markaan soo galnay bilaminar germ diskigi ayaan waxaa u bedelnay trilaminar germ diskigi. qaybtas gasulationka ayaan kusoo sharxay. marka waxaan rabaa in aan xusuusiyo qaabkii oo loo bedelayay bilaminar germ diskigi loogu bedelayay trilaminar germ disk ayaan rabaa wax yar inaan idin xusuusiyo. Okay, epiplasty cellska oo meeshaan way soo baxayaan. ugu horeyntii waxay imaanayaan hypoplasty ay imaanayaan. Hypoplasty ay waxay u bedelayaan endoderm ay u bedelayaan. Hypoplasty waxaa loo bedelay endoderm ayaa loo bedelay. inta ku qoraynaa hypoplasty waxaa u bedelay endoderm. marka hypoplasty meesha waa ka saarnay, waxaa ku bedelnay hypoplasty waxaa ku bedelay endoderm ayaa ku bedelay. marka epiplasty cellska way soo dhaqaaqayaan iyagoo primitive strigii ayay soo galayaan. waxay invagination ayay soo sameynayaan, meeshaan ay isku soo buuxinayaan, waxay sameynayaan mesoderm ayay sameynayaan. cellskii markay soo galaan meeshaan ay isku buuxinayaan, meeshaan markay buuxiyaan waxay sameynayaan layerka oo mesoderm ayay noo sameynayaan. mesoderm ayaa noo sameeyeen. sidoo kale epiplasty cellska soo haray iyagana waxay isku bedelayaan ama ay noqonayaan ectoderm ayay noqonayaan. epiplasty soo haray iyagana waxay noqdeen ectoderm. marka sidaas hadda bilaminar germ diskii waxaan u bedelnay trilaminar germ disk ayaan u bedelnay. meeshan waxaa ku haysanaa marka waa primitive strigi. kan waa primitive, intaa ku qoraynaa waa primitive strigi. okay, meeshan waa primitive strigi, kan waa endoderm, kan gaduudka waa mesoderm, qalinka cagaarka kor ku qorani waa ectoderm. marka sidaasa waxaan ku helnay saddexdan layer ayaan ku helnay oo ama bilaminar germ disk waxaan u bedelnay trilaminar germ disk ayaan u bedelnay. intaas kadib haddaan u gudubno sawirkan as sagittal section markaa u jirnay ayaan u gudbaynaa. sawirkan meeshan waxaan ku haysanaa amniotic cavity. meeshan laba cavity ayaan ku haysanaa. qaybtan kore cavitygan kore waa amniotic cavity, intaa ku qoraynaa amniotic cavity. halka qaybta hoosena uu yahay secondary yolk sac. meeshan waa secondary yolk sac. sidoo kale meeshan waxaan ku haysanaa labadan layerka oo qalinka bluega ku qoran yahay. layerka qalinka buluudka qoran waa ectoderm. sidoo kalena kan qalinka guduudka qoran yahay asagana waa endoderm. marka labadan layer ectodermka iyo endodermka waxay isaga dhegayaan dhinacyada ayay isaga dhegayaan. markay isaga dhegayaan dhinaca cephalic endigi ama qaybtan waa cephalic endigi. qaybtan waxaa dhehnaa waa cephalic endigi. meeshaan number 1 aan siinayna. qaybtan number 1 saa usoo xasuusano waxaan dhehnaa waa cephalic end. waa cephalic endiga. okay, qaybta cephalic endiga markay isaga dhagaan waxay noo sameynayaan oropharyngeal membrane ayay noo sameynayaan oo mustaqbalka noo noqon doono afka noo noqon doono. okay, part 2 caudal endigi. intani caudal endi ayaan dhehaynaa. qaybtan waxaan dhehaynaa caudal endigi. marka cephalic endig waxaa noo sameynayaa oropharyngeal membrane ayaa noo sameynaya. okay, marka qayb labaadna waxaa dhehaynaa cloacal membrane. cloacal ama caudal end.
qaybta labaad waxaan dhahanay caudal ending. Caudal ending waxaa noo sameyn doonaa membrane lagu magacaabo cloacal membrane. Cloacal membrane. Marka ectodermka iyo endodermka marka ay dhinacyada isaga dhigaan waxay noo sameynayaan laba membrane ay noo sameynayaan. qaybta oo cephalic ending markay iskaga dhigaan waxay noo sameynayaan oropharyngeal membrane. halka qaybta caudal ending markay isaga dhigaan ay noo sameyn doonaan cloacal membrane. Cloacal membrane mustaqbalka aniska ayuu noqon doonaa, halka oropharyngealka membrane-kan uu noo noqon doono afka uu noo noqon doono. marka inta u dhexeysa ectodermka iyo endodermka waxaan ku haysanaa primitive streak. waxaan ku haysanaa meeshaan madowga waa primitive streak wa intaan ku qoranaynaa. waa primitive streak. meeshaan xaraf a ayaa u baxsanaynaa saa u aqoonsano. number a waa primitive streak. يعني primitive streak madaxiisa waxaa saaran primitive node ayaa saaran, asagana b ayaan dhahaynaa. b waa primitive node or Hensis node. si loo sameeyo brinaticodal cellska, si loo sameeyo brinaticodal processa, brinaticodal cellska invagination ayaa soo sameynaya. waxay kasoo tagayaan primitive node ayaa kasoo tagayaan, way soo dhaqaaqayaan ilaa iyo xagga caudal end yani cephalic endigi ayay usoo soconayaan ilaa ay ka sameeyaan brinaticodal process ayay u sameeyaan. markii meeshan waxaa ka sameysmaayo qaybtan meeshan waxaa ka sameysmaayo wax lagu magacaabo brinaticodal process. asagani c ayaan dhahaynaa. c waxaa noo sameysmay noticodal process. marka primitive node-ka qaybta b aan soo dhahan primitive node-ka ama Hensi node-ka madaxiisa ku-aadka waxaa kasoo muuqanayo primitive bit ayaa kasoo muuqanayo. okay, meeshan waxaa kasoo muuqanayo primitive waxaa kasoo muuqday primitive bit. yani primitive bit-ka wuu soo dhaqaaqaya, wuxuu kusoo soconayaa noticodal processkii ayuu kusoo soconaya. idan wuxuu kusoo socday noticodal processkii ayuu kusoo soconaya si oo u sameeyo noticodal canal sida u sameeyo. marka canalkan waxaa dhihaynaa noticodal canal ayaa dhahaynaa. waxaasna waxaa waaye noticodal ballet ayaa dhahaynaa. waxaa idin sheegay d ayaa dhahaynaa. qaybta d primitive. waxaa idin dhahay primitive node-ka ku-aadka primitive node-ka waxaa kasoo muuqanayo primitive bit ayaa kasoo muuqanayo. waa kan yani primitive bit-ka wuu soo dhaqaaqayaa. markuu soo dhaqaaqo meeshaan kusoo soconaya, wuxuu kusoo soconayaa noticodal processkii ayuu kusoo soconaya. wuxuu sameynayaa noticodal processkii markuu kusoo socdo wuxuu noo sameynayaa noticodal canal ayuu noo sameynaya. marka meeshaan oo noticodal processka waxaan cadka ah ama canalkan waa noticodal canal. wuxuu noo sameeyey noticodal canal. okay, hadda noticodal canalka roofkaas yar oo kasoo haray meeshii saan ahaay noticodal processkii markuu dhexda kasoo baxay oo noo sameysmay noticodal canal, roofka yar oo kor kasoo haray waxaa ku magacaabeynaa noticodal ballet ayaa ku magacaabeynaa. noticodal ballet ayaan ku magacaabeynaa. okay, haddaan soo dulmaro waxaa idin sheegay
ectodermka iyo endodermka inay isaga dhegayaan labada dhinac. qaybtan encephalic endiga markay isaga dhagaan inay noo sameyn doonaan oropharyngeal membrane-ka oo noo sameyn doona afka. qaybta caudal endiga markay isaga dhagaan noo sameysmi doono membrane lagu magacaabo cloacal membrane oo anuska noqon doono. intaas kadib haddaan kasoo gudubno waxaan sheegay ectodermka iyo endodermka dhexdiisa marka hore waxaan ku haysanay primitive streak ayaan ku haysanay. yacni primitive streakga madaxiisa waxaan saarnahay primitive node. okay, primitive node-ka waxaa sameysmayay notochordal process. notochordal process markuu noo sameysmo ku-aadka primitive node-ka ama hensis node-ka ku-aadkiisa waxaa kasoo muuqanaya primitive bit. yani primitive bitka wuxuu kusoo soconaya notochordal process ayuu kusoo soconaya, wuxuu noo sameynaya canal oo lagu magacaabo notochordal canal. okay, notochordal canalkii marka la sameeyo, riignadan cad waa notochordal canalki marka la sameeyo, reefka kor saqafka kor markuu wax kasoo haro notochordal processkii wax kasoo haro waxaan ku magacaabay notochordal ballet ayaan ku magacaabay. okay, notochordal ballet ultima wuxuu noqonayaa neuroenteric canal ayuu noqon doonaa. ugu dambeyntii wuxuu noo noqonayaa neuroenteric canal. marka neuroenteric canal ayuu noqonaya. marka sagxadda hoose notochordal processka degenerate ayaa ku dhacayo. marka meeshii waxaa isku furmaayo labadan cavity, amniotic cavity iyo secondary yolk sac. meeshan degenerate ayaa ku dhacayo. marka waxaa isku furmaayo labadan cavity, amniotic cavity iyo secondary yolk sac ayaa meesha iskaga furmaya. ugu dambeyntii waxaa noo sameysmaya marka notochord ayaa sidaas noogu sameysmaya. notochord ayaa sidaas noo sameysmay. notochord waxaa idin sheegay in uu noqon doono mustaqbalka vertebralka inuu noqon doono. yani vertebral يعني notochord mustaqbalka waxaa idin sheegay inuu noqon doono vertebral column. marka notochord soo haran wuxuu noqon doonaa intervertebral diskiga ayuu noqon doonaa. wuxuu noqon doonaa intervertebral disk ayuu noqon doonaa. intaas kadib haddaan u gudubno as horizontal markaan u jirno. horizontal markaan u jirnay oo dorsal view aan u fiirinay qaabka ugu eg yahay notochord. haddaan u imaano sawirkan waa qaybtan waa cephalic endiga. qaybtan waa cephalic endiga waaye, halka oo qaybtan uu yahay caudal endi waaye. waxaa idin sheegay caudal endigi inuu noo sameynayay cloacal membrane, halka cephalic endigina oropharyngeal membrane oo noo sameynayo oropharyngeal membrane. qaybtan wuxuu noo sameynaya caudal membrane. okay, markaan u fiirinayno dorsal view as horizontal, meeshan waxaan ku haysanaa primitive streak. yani primitive streakga waxaa dul saaran primitive node. primitive node meeshan waxaa ka sameysmaya notochordal process ayaa ka sameysmaya. primitive bitkana meeshan uu ka sameysmaya. marka saan ay usoo baxayan celska evagination, saan ay uga soo sameynayaan ilaa ay meeshan ay ka gaaraan. okay, ilaa iyo meeshan ay ka gaaraan. cloacal membrane-ka iyo oropharyngeal membrane-ka in ay sameysmaan waxaa ka mas-uul ku dhegitaankay isku dhegayaan ectodermka iyo endodermka ayaa ka mas-uul cloacal membrane-ka maalinta 16 ayuu soo muuqdaa. ku-aadka connected steel-ka cloacal membrane-ka waxaa kasoo muuqanaya canal ayaa kasoo muuqanaya. canalkaas oo ku aadan connected steel-ka. marka canalkaas waxaan ku magacaabeynaa Allantoin canal. Allantoin ama sidoo kale waxaan dhihi karnaa allantoenteric ayaan dhihi karnaa. marka allantoinka mise allantoenterica asi wuxuu soo muuqdaa maalinta 16 ayuu soo muuqdaa. marka waxaa meesha ka garan karaysaa in uu ka imaaday allantoinska caudal wall of the yolk sac in uu ka imaaday ayaa meesha ay ka garan karaysaa. marka muxuu noo qabtaa marka yani allantoinska ama allantoenteric muxuu noo qabtaa.
wuxuu noo qabtaa placenta development ayuu ka qayb qaataa sidoo kale extraembryonic phosphogenesiskana wuu ka qayb qaataa marka umbilical pheasantska iyo phosphogenesiska formation of the placenta ayaan kaga hadli doonaa haddii uu aaba noo ogolaado marka intaas kadib waxaan rabaa in aan u gudagalo intaan kadib waxaan rabaa inaan u gudagalo development of the trophoblast ama further development of the trophoblastiga sida uu horumaraya trophoblastiga marka aan joognay bilowga weegan ama bilowga weega saddexaad marka aan joognay marka bilowga weega saddexaad trophoblastiga wuxuu caan ku ahay primary villa ayuu caan ku ahay yani primary villa yani wuxuu lahay cytotrophoblast core ayuu lahay cytotrophoblast core-kani meelahan wuxuu ku lahay cytotrophoblast waxaa ku daharnay essential layer ama cytotrophoblast layer ayaa ku daharnay marka waxaa ku daharnay marka waxaan rabaa in aan sabir ahaan idinkugu muujiyo marka sabirkan aan hadda idin sabirayo waa primary villas oo loo jaray transfer loo jaray ayaan hadda idin sabirayo kan waa primary villa marka primary villaga qaybtan kore waxaan dhihaynaa sensitive trophoblast kan waa sensitive trophoblast sidoo kale sensitive trophoblast gudahani waxaa ku jiro cytotrophoblast cells meeshan waxaa ku jiro marka cytotrophoblast mesodermal cellska mesenchymal cellska waxay kasoo baxayaan koorka oo leeyahay primary villa ayay kasoo baxayaan marka ay kasoo baxaan meeshii marka waxaa ka samaysmayo secondary villa ayaa sidaas ku samaysmayo waxaa noo samaysmay secondary meesha waxaan ka samaysmay secondary villas ayaa meesha ka samaysmayo okay isna hadii sabiro okay marka meeshan waxaan ku haysanaa mesodermal corki meeshan waa mesodermal corki mesodermal core yani mesodermal corka meeshan waa sidoo kale waa way iska mid waa primary villa wix ku daharan sensitive trophoblast waa kan dheena kani waa cytotrophoblast hal layer oo sensitive trophoblast iyo cytotrophoblast ayaa ku daharan dhamaadka dhamaadka weegan ama dhamaadka third week of development ama dhamaadka week aan hadda ku jirno mesodermal cellskan yani waxay isku bedelayaan mesodermal cellska waxay u qaybsamayaan blood cellska iyo small blood vessel ay u qaybsamayaan yani waxay sameynayaan wax lagu magacaabo villus capillary system ayay sameynayaan villus capillary system ayay sameynayaan villaska waxaan ku magacaabi karnaa ama aan ku magacaabi karnaa tertiary villa asagana tertiary villa inta ku sameynayna hadda villaska waxaan ku magacaabi karnaa tertiary villa tertiary villa
marka tertiary villa ayaan ku magacaabi karnaa. marka tertiary villa sidoo kale waxaan dhihi karnaa yani divinative placenta villa ayaan dhihi karnaa tertiary villa. intaas kadib capillaries ku jiro tertiary villa, meeshan waxaa ku jiro capillaries ayaa ku jiro. okay, oo villas kan waa villas capillaries waa. marka tertiary villa waxaa ku jiro capillaries ayaa ku jiro. marka capillaries ku jiro tertiary villa waxay xiriir la sameynayaan capillaries kale ama capillaries kale ay leeyihiin chorionic yani chorionic valley iyo connected yani connected stemkii ayay xiriir la sameynayaan. marka vesselskan hadda yani vesselskan waxay xiriir la sameynayaan interembryonic circulatory system ayaa la sameynayaan, kaasoo isku xira hooyada iyo canuga, kaasoo isku xira hooyada iyo canuga. marka hore markaan gaarno 4th week of development ama weega afraad, wadnihii shaqadiisa ayuu bilaabaya. markii wadnihii uu shaqada u bilaabana villa systemka markaas ayay eegana shaqadooda bilaaban. villa systemka markaas ay shaqadooda bilaaban waxay bilaaban oxygenkii iyo nutrientiga in ay canugii gaarsiiyaan ayay bilaaban. marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.